jeclahay inaan maanta golaha guurtida oo ah golaha koowaad ee qaranka halkan isugu nimaadno. kelimad wanaagsan buu yidhi Dayro, wuxuu yidhi waa guurtidu waa gardaadiyaha qarannimada Somaliland. waxaan rajaynayaa inuu noqdo kulan joogto ah si aynu uga wada soconno xaaladaha qaranka, waxaana isaga weydiino talooyinka aynu ku dhisayno mustaqbalka qarankeena jamhuuriyadda Somaliland. walaalayaal, golayaasha qarankeena door muhiim ah ayay ku leeyihiin geediga dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladnimada ee dalkeena. sidaa awgeed waajib bay xukuumad ahaan nagu tahay inaanu kaalin idinka siino naqshadaynta isbeddelka togan ee aanu doonayno inaanu qaranka ku hagno. golaha guurtida oo aan anigu qudhaydu sharafeed ka ahay, hoggaamintiisa, xigmaddiisa iyo taladiisa, waayo aragnimadiisa ayaa qayb lixaadle ku lahayd dhismaha seeska dowladnimadeenna, adkaynta qiyamkeenna iyo dhaqankeenna iyo sugidda ammaankeenna. shaqadaas muhiimka ah ee goluhu uu kalsooni badan kaga kasbaday qaranka iyo kaalinta gaarka ah ee uu dastuurkeenu siiyey waxay iftiiminaysaa muhiimadda weyn ay leedahay wada shaqaynta waaxyaha kala duwan ee dowladdu si loo adkeeyo nidaamka dowladnimo loona xaqiijiyo himilada muwaadiniinta. waxaan jeclahay inaan kulankani uu noqdo kii sii dardargelin lahaa iskaashigaas iyo wada shaqayntaas waajibka inagu ah, inuu noqdo kulankii uu gobol xaali lahaa midnimo qaran oo aynu tusaale ugu noqonno guud ahaan ummaddeena, waxtarkeeduna ka muuqdo gobolka iyo guud ahaanba xidhiidhkeena dalalka dibadda. waxaan xusayaa dowladda Itoobiya oo aynu saaxiib soo jireen nahay iyo Jaad aynaan uga maarmayn horumarka dhaqaalaha, adkaynta amniga, xasiloonideena bulsho iyo xidhiidhkeena Afrika. waajib bay nagu tahay inaanu xidhiidhkaas sii wanaajinno, faa'iidada uu u leeyahay labadeenna qaranna aan halka ugu sarraysa gaadhsiino. dhanka kale, waxaan sii adkayn doonaa xidhiidhkeenna soo jireenka ahaa ee walaalaheena jamhuuriyadda Jabuuti. waxaan isagana xusayaa xidhiidhkeenna dowladda Maraykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah Somaliland u danaynaya. waxaan bogaadinayaa xildhibaanada Koongareeska iyo Senadka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Maraykanka ee ku baaqay in Maraykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto Somaliland. waxaanu mari doonaa dariiq kasta aanu ku sii xoojinayno xiriirkaas. xukuumad ahaan waxaanu soo dhoweynaynaa xidhiidhada fiican ee inooga socda dowlado badan oo kale. waxaan rajaynaynaa in midho wax ku oolihi ka soo baxaan arrimahaas. dalka gudihiisa waxaanu bilownay kormeero la xidhiidha ciidankeenna kala duwan si aanu dib u habaynta hay-adaha ammaanka iyo difaaca qaranka u galno. dhinaca kalena waxaanu barbar wadnaa dadaalada xasilinta bariga Somaliland oo meel fiican maraya. dhowaana sida aanu shirguddoonka golaha guurtida ka wada tashanay, waxaanu ku dhowaan samayn doonaa guddi u xil saaran arrimaha nabadeynta. inkastoo aanay wakhtigan jirin khatar gurmad degdeg ah oo u baahan, haddana waxaa waajib ah inaynu yeelanno feejignaan dheeraad ah si aynu u xaqiijinno in qarankeenani uu sii ahaado shamaca nabadda iyo dimuqraadiyadda ee gobolka Geeska Afrika. walaalayaal,
shacbiga reer Somaliland aynu dhinac iska dhigno doonisteena qofeed iyo danaha ka hooseeya qarannimada una midowno himilada iyo higsiga guud ee qarankeena xukuumad ahaan taas baanu ka shaqayn doonaa wadajir waxaynu ku dhisi doonaa Somaliland qurux badan oo guuleysata Somaliland ha guuleysato